بسم الله الرحمن الرحيم halkan waa timcada media hadii aad tahay saaxiibada ku xiran waad ku mahadsan tahay hadaadan ahayn kamid noqo saaxiibada halkan ku xiran si aad u hesho xogo badan oo ku saabsan xaaladda guud ee Soomaaliya gaar ahaan warbaahinta dunida iyo cilmi baarayaasha ee buugaagta ka qora kooxaha xagjiriinta ee ka dagaalama Soomaaliya hadda al-shabaab dunidu maxay ka aaminsan tahay maxayna waqtigan awoodi karaan inay sameeyaan al-shabaab ayaa weli awood u leh inay weeraro culus ka fuliyaan gudaha Soomaaliya iyo wadamada ku xeeran inkastoo oo howlgallada midowga Afrika ee muddada dheer socday ee ka dhanka kooxdan oo weli ka socda gudaha Soomaaliya al-shabaab ama dhalinta waa koox islaamiyiin ah oo kacdoon ka wada Soomaaliya waxay hal mar qabsatay caasimadda Muqdisho iyo qaybo badan oo ka mid ah baadiyaha Soomaaliya laakiin sanadihii u dambeeyay olole military oo ay hogaaminayeen midowga Afrika ayaa dib ugu riixay xarumaha waaweyn ee dawladda kacdoonku wuxuu weli yahay caqabada koowaad ee amniga ee dagaalka sokeeye ee Soomaaliya waxayna weli sii wadaan weerarada halista ee ka dhanka ah ciidamada reer galbeedka iyo dadka rayidka ah ee gobolka. Battles returning to the Somali capital Mogadishu, this time between state troops and Islamist fighters loyal to the government. Mid ka mid ah wadamada ugu saboorsan adduunka, Soomaaliya waxay aragtay koox mintadiin ah 20 sano ee jahwareerka siyaasadeed. falanqeeyaasha ayaa sheegaya in horjoogihii al-shabaab isla markaana u horseeday hogaamiyaasheeda badan inuu ahaa al-ittihaad al-islaam ama loo yaqaano midnimada islaamka koox xagjiriin salafi ah oo soo baxday 1990kii dhicitaankii kadib siyaad barre 1969kii ilaa 1991kii nidaamkii iyo dagaalkii sokeeye aas-aaskeeda waxay ahayd koox ka mid ah xagjiriinta Soomaaliyeed ee wax ka baratay bariga dhexe oo qayb ahaan maalgeliyay Mogadishu on Monday morning. An anti-government Islamist fighter breaks cover. He soon pays the price. But he's not alone. yaa gacanta ku dhigay caasimadda bishii Juun 2006 guushu waxay kicisay cabsi ka jirtay dariska Ethiopia ee rabshadaha jihaad doonka sidee marka hore kooxdan ku soo bilaabatay waa muhiim in aad ogaatid Ethiopia oo ah ummad masiixiyiin ah badankood ayaa soo weerartay Soomaaliya bishii December 2006 isla markaana ka saartay maxkamadaha islaamiga magaalada Muqdisho iska caabin yar fargelintaas waxay timid markii ay codsatay dawladda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya in laga adkaado al-shabaab falanqeeyaasha ayaa leh kadib markii in ka badan oo ka mid ah hogaamiyaashii maxaakiimta islaamiga ay u carareen wadamada deriska ah gaar ahaan kuwa Carbeed al-shabaab waxay dib ugu laabteen koonfurta Soomaaliya halkaas oo ay ka bilaabeen abaabulidda weerarada gumaadka oo ay ku jiraan qaraxyada iyo dilalka ka dhaca magaalada Muqdisho 2006 iyo 2008 xiriirka kooxda ee al-qaacida ayaa soo shacbaxay muddadan Febraayo 2008 hoggaanka al-shabaab wuxuu ku dhawaaqay inay daacad u yihiin ururweynaha al-qaacida 2012kii wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykankana ayaana ururkan u aqoonsatay mid argagixiso qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa yaa hogaamiye kooxda al-shabaab waqtigan waxa muhiim in aad ogaatid aas-aaskooda kadib hadda yaa hogaamiyo shakhsiga hogaamiyana muxuu yahay Ahmed Umar oo sidoo kale loo yaqaano Abu Ubayda waa hogaamiyaha hadda ee al-shabaab waxaa la magacaabay 2014kii kadib markii ay dawladda Mareykanka ay duqeyn ku dishay ninkii ka horreeyay oo ahaa Axmed Cabdi Godane qobarada qaar ayaa rumaysan in ka bixitaankii Godane ama dilkii Godane ay kicin doonto halgan awood maxaa yeelay Abu Ubayda wuxuu u muuqday inuu haysto xeeladaha istiraatiijiyadda ee Godane umana muuqato in uu sii wadi doono gacan ku haynta kooxda jabtay dhawaan qobaradu waxay sheegeen in al-shabaab ay weli tahay urur si buuxda u midaysan waxaad ku mahadsan tahay shabakad dhan oo dhisan markay ay jirto ee dagaalamayso dabcan waxaa ku baxa qarash badan oo siyaabo kala duwan ku soo galo ogow qarashka ku baxa kooxahan al-shabaab xaguu ka soo galaa waa muhiim in aad ogaatid yaa maalgeliya kooxda al-shabaab qobarada la dagaalanka argagixisada ayaa sheegaya in al-shabaab ay ka faa'iideysteen dhowr ila dhaqaale sanadihii la soo dhaafay oo ay ku jiraan kooxaha kale ee argagixisada burcad badeed afduubka
iyo ganacsiga badda ee maxalliga ah, beeralayda iyo kooxaha gargaarka iyo kuwa kale. Dowladda Eritrea ayaa lagu eedeeyay in ay maalgeliso kooxdan Al-Shabaab, laakiin waa ay beenisay sheegashadan. Al-Shabaab waxay dhiseen howlgal ballaaran oo lagula dagaalamayo iyadoo canshuurta laga qaado isticmaalayaasha dhuxusha sida sharci darrada ah looga ganacsado ay keento 7.5 milyan oo doolarka Mareykanka ah sanadkiiba, inkastoo oo xayiraadda qaramada midoobay ay ka mamnuucday dhoofinta dhuxusha Soomaaliya ilaa 2012. Sanadihii la soo dhaafay, Al-Shabaab waxay kordhisay ku tiirsanaanteeda ka ganacsiga tahriibinta sokorta sharci darrada ah ee soohdinta Kenya la keeno, iyadoo sanad walba la keeno 10 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Ciidamada Kenya ayaa lagu eedeeyay in ay ku lug lahaayeen qorshahan ilaa sanadkii 2015. Waxaan idiin soo gudbin doonaa sheekooyin la halmaala sirdoonka iyo kuwa kale. Si aad u hesho xogaha sirdoonka Al-Shabaab iyo dhammaan ururka Al-Qaacida, haddaba isha ku hay bartan Timcadda Media. waad ku mahadsan tahay haddii ay tahay markaadii kugu horeysay caawa warbixintan aad ka daawatid halkan ka mid noqo saaxiibada ku xiran si aad mar walba u hesho xogo badan oo warbaahinta dunida iyo dadka cilmi baarayaasha ee ku sameeyo xagjirintan dabagalada ama baaritaanada ku sameeya ee xogo badan ka qoro. Si aad u ogaatid fadlan ka mid noqo saaxiibada halkan ku xiran. waad ku mahadsan tahay haddii ay tahay markaadii kugu horeysay. mahadsanideen.